بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan halkii uu noo joogay kasii wadi doonaa casharkeenii hore noogu socday oo ku saabsanaa an overview of basic statistics, dulmar guud oo aan ku sameynaynay aasaaska cilmiga statisticska. waxaan kusoo qaadanay casharkii hore 3 section ama 3 qaybood oo kala ahayd. qaybta koowaad aasaaska cilmiga statisticska, qaybta labaad qeexitaanada cilmiga statisticska, qaybta saddexaadna waxaan kusoo qaadanay qaybaha oo u kala baxo cilmiga statistics. maanta waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah sectionka 1.4 oo aan uga hadli doono importance and scope of statistics, muhiimadda uu leeyahay cilmiga statisticska iyo fieldiska uu la xiriiro. casharkii hore qofkii aan soo daawan si labada cashar isugu xirmaan waxaan soo dhigi doonaa insha Allah descriptive qaybta linkiga hoose. sidaa darteed casharkii hore soo daawo si labada cashar isugu kaa xirmaan. markaan bilaabno casharkeena intaanaan marka slideska meesha noogu qoran ama casharka meesha noogu qoran aan inta soo gadagelin aan si guud uga hadalno kaalinta cilmiga statisticska uu ku leeyahay nolol maalmeedkeena. haddii aan kasoo qaadano tusaale ahaan go'aan qaadashada maalin kasta aan qaadano, go'aanadaas oo noqon kara go'aan shakhsi ahaan aad ugu qaadatid ama go'aan la xiriira ganacsi ama se go'aanada nooc kastaba ha ahaatee. go'aanadaas markaan qaadanayno xaaladaha aan go'aan ku qaadanayna ma hubno inay sida aan ugu qaadanay u dhici doonaan in kale. sidaa darteed statisticsku waxay naga caawiyaan in xaaladahaas hab cilmiyeysan oo xigmadaysan aan go'aan uga qaadano anagoo markaas marxaladda amase problemka ama mas'alada jirta qaab statistic ahaan u wajahayna. sidaa darteed waxaan leenahay go'aamada qaadashadooda lagu saleeyo hab statisticska waxaa loo yaqaanaa educated guesses ayaa loo yaqaanaa amase qiyaas cilmiyeysan ayaa loo yaqaanaa. halka go'aamada la qaato oo aan ku saleysnayn statistics amase habab statistics ama statistical methods aan ku saleysnayn loo yaqaano pure guesses. badanaana go'aamada noocaasa oo aan ku saleysnayn habab statistics ama habab statistics aan loo marin waxaa la yiraahdaa laguma kalsoonaan karo oo waxay yihiin habab aan lagu kalsoonaan karin ama aan cadeymo wax evidence wadan waa. tusaale ahaan haddii aad rabtid inaad meel ka furatid carwo kale haddaad rabtid inaad ka furatid waxaad u baahan tahay intaad carwada furanin in aad ogaatid dadkaas meesha jooga baahiyaha ay qabaan, dakhligooda ama hantidooda lacagtooda intay la eg tahay si aad u guuleysatid ganacsigaas aad meesha ka furaysid. marka go'aanka haddii aad ku saleysid statistical methods haddaad ku saleysid oo survey sameysid oo kale waxay kaa caawinaysaa in go'aankaaga uu noqdo amase balaanka qorshahaaga uu noqdo qorshe guuleysta. marka waxaan leenahay statisticsku waxay laga maarmaan u tahay go'aan maalmeedkeena amase nolol maalmeedkeena guud ayayba laga maarmaan u tahay. aan usoo galno casharka meesha noo qoran amase slideska si guud haddaan akhrino waxaan leenahay waqtiga casriga ee la joogo looma arko statisticska inay tahay aaladda kaliya aaladda wax lagu aruuriyo amase xogta numericalka amase xogta tirada lagu aruuriyo kaliya looma arko, laakiin sidoo kale waxaa loo arkaa habab lagu hormariyo, lagu maareeyo, sidoo kale lagu taxliiliyo ama lagu saafo xogtaas loogana soo qaato xogta waxa loo yaqaano gabagabooyin sax ah amase waxa loo yaqaano valid inferences. xogtaas looga soo qaato gabagabooyin amase conclusion sax ah looga soo qaato xogta. sidoo kale waxaan leenahay statisticsku kuma koobna arrimaha dowladda kaliya kuma koobna, laakiin waxay si joogto ah ugu jirtaa dhammaan majaalaadka amase qaybaha kala duwan ee nolosha ha ahaato arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo siyaasadda. marka labada ugu horeyso socialka economicska waxaan rajeynayaa inay ku jiraan casharka ama qaybta fieldiska uga hadli doono. haddaan si kooban uga hadlno sida ay politicalka muhiim ugu tahay statisticsku waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta waddanku haddii ay rabaan inay waddankaas wax u qabtaan waddadii ay u mari lahaayeen waa statistics, yacni inay xog rasmi ah aruuriyaan amase ay maraan hab statisticska waxqabadka waddankooda inay u maraan hab statisticska markay waxay qabtaana ay si xog rasmi ah amase official usoo bandhigaan intay ay ka dhihi lahaayeen waxay balan qabana amase saana sameynay in xogtii loo soo bandhigo as official data oo xog waxqabadkii rasmiga ahaa oo qabto qofkii uu soo bandhigo amase uu qorsheeyo sidii wax u qaban lahaayoo kale.
waxaan leenahay statisticsku waxay helaysaa waqtiyadan adeegsi aad u badan waxay ka helaysaa dhammaan culumta kala duwan ha ahaato cilmiga culumta loo yaqaano social scienceska iyo culumta loo yaqaano sidoo kale physical scienceska oo ay kamid tahay cilmiga loo yaqaano biologyga, psychologyga, educationka, economicska iyo waxa loo yaqaano business management ama cilmiga dhaqaalaha iyo cilmiga maareynta ganacsiyada iyo culum badan oo aan meeshan lagu soo koobi karin aad u badan. waxaan leenahay statisticsku waxay noqonaysaa mid lagama maarmaan u ah dhammaan activity-yada ama hawlaha ama dadaalada ay qabtaan ay sameeyaan bini'aadamku. haddii aan halkaas uga soo gudbino muhiimadda guud ee uu leeyahay cilmiga statisticsku weliba annaga uga hadalnay si kooban aan galno fieldiska amase culumta kale ee uu la xiriiro cilmiga statisticsku. qaybta ugu horeysa waxaan uga hadli doonaa statistics and planning, statisticska iyo qorsheynta waxa loo yaqaano xiriirka ka dhexeeya. waxaa leenahay statisticsku waxay lagama maarmaan u tahay qorsheynta. markii la rabo in wax la qorsheeyo statisticsku waa lagama maarmaan. sidaan hore usoo sheegnay markaan go'aan qaadanayno oo kaleba statisticsku waxaan leenahay waxay lagama maarmaan u tahay qorsheynta ama marka wax la qorsheynayo. waxaan leenahay casriga la joogo, casrigaas oo loo yaqaano age planning loo yaqaano. casrigaan joogno waxaa loo yaqaanaa waqtiga qorsheynta ayaa loo yaqaanaa. dhammaan caalamka gaar ahaan dowladaha soo korayaahi waxay miciin bidaan qorsheynta dhaqaalaha, horumarka dhaqaalahooda inay qorsheeyaan yani ayay door bidaan. si marka qorshahaasi uu u noqdo mid guuleysta waa in uu ku saleysnaadaa taxliilin sax ah ee xog statistics. waa inuu ku saleysnaadaa analyzing sax ah ama saafid sax ah oo ka timid xog statisticska. waa inuu ku saleysnaadaa qorshaha noocaasa ama si uu qorsho u guuleysto waa inuu ku saleysnaadaa saafid sax ah xog statisticska waa inuu ku saleysnaadaa. haddaan halkaas ugu soo gudubno qorsheynta iyo waxa ka dhexeeya cilmiga statisticska aan u guda galno waxa loo yaqaano statistics and economics, xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo statisticska. statisticsku waxay naga caawisaa in aan fahanno taxliilinana fikradaha amase nadariyaadka dhaqaalaha la xiriira. sidoo kale aan garanno ama aan aqoonsano xiriirka ka dhexeeya doorsoomayaasha kala ah amase xiriirka ka dhexeeya demandiga, supplyga iyo waxa loo yaqaano price outputka amase qiimaha shayga uu kusoo baxayo ama productiga pricekeedo kale xiriirka ka dhexeeya in aan ogaano amase fahanno ayuu naga caawinaya statisticsku. sidoo kale statisticsku wuxuu fududeeyey horumarka nadariyaadka dhaqaalaha ayuu fududeeyey. waxaan leenahay adeegsiyo badan oo ka imaaday xisaabta iyo cilmiga xisaabta iyo statisticska oo loo adeegsado barashada cilmiga dhaqaalaha ayaa waxay keentay horumarka disciplina cusub oo loo yaqaano ama lagu magacaabo economic statistics iyo econometrics. economic statistics econometrics maxaa loo kala yaqaanaa marka maxay iskala yihiin? economic statisticska waa topic kamid ah waxa loo yaqaan applied statisticska ama statisticska la isticmaalo ka oo quseeya aruurinta, habeynta iyo isku duwidda xog dhaqaale ah. sidoo kale econometricsna waxaa loo yaqaanaa sidaan magaca ka aragno econometricsku wuxuu ka imaaday laba eray oo kala ah econo iyo metrics oo loola jeedo econo waxaa loola jeeda economics halka metricsna loo jeedo measurement oo noqonayo wax loo yaqaano economic measurement ama qiyaasaad sida loo qiyaaso wax loo yaqaano dhaqaalaha, qiyaasada dhaqaalaha. wuxuuna isticmaalaa habab statistics ama statistical methods ayuu isticmaalaa si loo qeexo nadariyaadka dhaqaalaha, si loo qeexo ama loo tijaabiyo, si loo qeexo ama nadariyad dhaqaale si loo qeexo ama loo tijaabiyo wuxuu isticmaalaa wax loo yaqaano statistical methods. statistics and business, statisticska iyo ganacsiga xiriirka ka dhexeeya ayaan ku baran doonaa qaybtaana. waxaan leenahay statisticsku waxay aalad lagama maarmaan ah u tahay wax soo saarka. sidoo kale fuliyaasha ganacsiga amase maamulayaasha ganacsigu waxay aad ugu tiirsan yihiin hababka statisticska si
ay wax uga ogaadaan baahiyaha iyo rabitaanada macaamiishooda, iyo sidoo kale ayagoo isticmaalaya ujeedooyin badan oo ka duwan intaas ama si intaas kasii dheeraada. Guusha qof ganacsada ah inuu guul sarreysa aad u sarreysa gaaro ama guul hooseysa oo kale inuu gaaro waxay ku tiirsan tahay saxsanaanshihiisa saadaaleyn ku saleysan statistics. waxaan leenahay sidoo kale filashooyin qaldan taas oo ka dhalatay taxliilid qaldan oo uu sameeyey ama saafid qaldan ee uu sameeyey markuu taxliilinayay waxyaabaha kala duwan ee saameynayay arrin gooni ah ayaa waxay u keenaysaa khasaaro ayay qofka u keenaysaa. oo tusaale ahaan in uu shay uusan ku sameynin wax loo yaqaan analyzing ku sameyn ama analyzing qaldan haddii uu qofku sameeyo oo xisaab qaldan isku dhufsado qofkaas waxa u soo bixaysa inuu businesskiisii ku khasaaro ama uusan sameynin yani survey ku habboona ama surveygii wuu sameeyey qaabka u taxliiliyay ama u saafay ama statistics qaabka u isticmaalay ay ahayd qaab qaldan. sidaa darteed maxaa ku imaanaya qofka maxaa leenahay waxaa ku imaanaya khasaaro ayaa ku imaanaya. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa wax loo yaqaano statistics and industry, statisticska iyo wax loo yaqaano warshadaha xiriirka ka dhexeeya. waxaa leenahay warshaduhu waxay aad statistics u isticmaalaan wax loo yaqaano quality control amase xakameynta tayada. markaan ka hadlayno wax soo saarka warshada si loo ogaado in productigan lasoo saarayo uu waafaqsan yahay inuu waafaqsan yahay tilmaamihii amase muwaasafaadkii laga rabay, waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano statistical tools oo aad u muhiim ah kuwaasoo tusaale ahaan lasoo qaadan karo wax loo yaqaano inspection plans amase control charts. qaybtan waxa loo yaqaano inspection planska amase qorshaha kormeerka wax loo yaqaanahi waxaa la isticmaalaa amase waxaa la miciin bidaa in la qaato sample, in xogtii laga soo qaato amase productigii badnaa ee lasoo saaray ayaa waxaa laga qaadanayaa sample amase muunad yaraa laga qaadanayaa. muunadaas ayaa la fiirinayaa in muwaasafaadkii amase tilmaamihii laga rabay productigan inay buuxinayso iyo in kale. muunadu marka waa qayb muhiim ah oo ka tirsan amase kamid ah statisticska. sidoo kale inspection plans hadda ka hadla control chartskana sidoo kale waa statistical tools ama aalad statisticska taa oo lagu go'aamiyo in processkan socda amase manufacturing processka socda amase business processku uu ku jiro xaalad under control inuu ku jiro iyo in kale ayaa lagu ogaadaa wax loo yaqaano control chartska. qaybtan sidoo kale waxaa kaloo doon wax loo yaqaano statistics and mathematics, statisticska iyo xiriirka kala dhexeeya cilmiga xisaabta. si guud haddaan uga hadalno markii statisticska saynis ahaan looga hadlayo waxaa la yidhaha inta ugu badan waa qayb kamid ah xisaabta ayaa la yidhahdaa oo branch of mathematics inay tahay ayaa loo tixgeliyaa. buugaag badanna saasay ku dhifaan garayaan. waxaa leenahay statisticska iyo xisaabtu ama cilmiga statistics iyo cilmiga mathematicsku waa laba cilmi oo aad u soo xiriira. horumaradii xilliyada dambe uu sameeyey ay sameysay wax loo yaqaan statistical techniquesku ayaaba wuxuu ka imaaday adeegsiyo badan oo ka imaaday xisaabta horumarta xisaabta yani amase xisaabta horumartay. xisaabta markay ku imaado wax loo yaqaano advanced ay ku imaaday ayaa waxaa imaaday wax loo yaqaano statistical techniques oo badan ayaa ka dhashay. horumarkaas xisaabta ku yimid ayaa waxaa ka dhashay statistical techniques ama isticmaal statistics hababka statistics. sidoo kale waxaan leenahay statisticska waxaa loo tixgeli karaa in ay tahay qayb kamid ah xisaabta taa oo na siisa habab lagu taxliiliyo xog aad u tiro badan oo ah yani xaqiiqo tiro ah oo isla xiriirta ah. marka loo fiiriyo caalimka amase ninka statisticianka Connor definitionka uu ka bixiyay statisticska wuxuu yiri statisticsku waa qayb kamid ah xisaabta taa oo ku takhasustay amase ku takhasusta cilmiga amase kaas oo ku takhasusta xogta. siyaadinta ama siyaadida ay siyaaday kaalinta xisaabta ay ku leedahay taxliilinta statisticska amase taxliilinta amase analyze garaynta xogta statisticska ayaa waxaa ka dhashay qayb cusub oo statisticska kamid ah taa oo loo yaqaano mathematical statistics.
statistics and war. Statisticska iyo xiriirka dhexeeya dagaalka. Markaan dagaalka ka hadlayno ama dagaal joogno waxaa la isticmaalaa nadariyad ama theory loo yaqaano theory of decision functions loo yaqaano. Theory of decision functions kaasi marka waa hab kaas oo go'aanada ugu faa'iidada badan looga qaato jawi aan la hubin. Jawi aan markaas la hubin ayaa waxaa looga qaadanayaa go'aanada ugu faa'iidada badan ayadoo lagu saleynayo xog laga haayo jawigaas ama se xaaladaas xog laga haayo oo la taxliiliyey kadib ayaa waxaa lagu qaadanayaa waxa loo yaqaano go'aan ayaa lagu qaadanayaa. Go'aanka noocaas ah marka wuxuu aad u caawinayaa ciidamada iyo shaqaalaha farsamada in ay qorsheeyaan geysashada burburkii ugu badnaa ayagoo isticmaalaya dadaalka ugu yaraa. Sidoo kale statisticsku wuxuu dowladaha ka caawiyaa inay aruuriyaan xog rasmi ah ama sax ah oo ku saabsan ciidamada dagaalamaya si ay u ogaadaan qarashaadka ku baxaya ciidamadaas iyo hubka ku baxayo kale si ay u ogaadaan kadibna ay uga qaadaan ama se ugu soo rogaan dadka shacabka canshuur ahaan ay ugu soo rogaan. Sidaa darteed waxaan leenahay cilmiga statisticsku wuxuu la xiriiraa inta ugu badan culumta kale ha ahaato cilmiga waxa loo yaqaano social scienceska iyo sidoo kale physical science. Marka anaga qaybtaan anagu hadalnay fieldiska uu statisticsku la xiriiro aad aan usoo koobnay kama aanan hadlin dhammaan culumta kale oo la xiriiro. Culumta kale oo la xiriiro oo badan oo aan sheegay waxa kamid ah healthga sidoo la xiriiro cilmiga la yiraahdo epidemiologyga, astronomiga, biologyga iyo culum badan. Marka intaan waa qaab yar oo kooban oo anagu hadalnay sida statisticsku ay culumta kale u la xiriirto.